السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السو دوادا دمانتين كسو دوادا مدشان زوم كعاوة قوانية فهي بودكاست waxaan ugu talagalnay barnaamijkii maalinka dhawaadaan ka hadlaynay Netherland loo yaqaano scholarshipkan OKB dowladda Netherland bixiso caawa insha Allah waxaa nala jooga dhalinyaro ku guuleysatay scholarshipkan waxay naga wax warbixin doonaan scholarshipkan waxa uu yahay iyo taariikhdoodii sidii waxa garanaysaa ay ku heleen talooyinkooda iyo waxyaabo badan oo ku saabsan barnaamijkan hadhowdina waxaa samayn doontaa insha Allah wixii su'aalaha jira inaad markaas aad weydiisaan mar kale waan idin soo dhaweynayaa programkeena insha Allah bilaaban doonaa waxaan insha Allah ku horeysiin doonaa Maxamed Amiin oo insha Allah waxa weeyaan halkaas naga sii wadi doona maxamed ma maqashaa واكم مقلا aad iyo aad ku soco insha Allah soona sheer gare waxa اوكي inta waa weydiidan tahay kolley dhankaaga adaa hoosti hadda marka adigan kuu soo diraa marka dhalinyarta la wadaag adiga okay hay isku okay waa iska bilaabanaynaa intaad powerpointiga aad dhalinyarta aad ka tuseyso dhammaan akhyaarta kala duwan way mahadsan yihiin siday uga soo qayb galeen barnaamijka wax yaroo khibrad aan idinla wadaagi doonaa hadduu rabbi idmo marka waxaa rajeynaa in si fiican la ii maqlo ma la ii maqlaa horta aad iyo aad aad mudan okay aada u mahadsantihiin okay introductionkan iska wadanaynaa asxaabta kala duwan intii powerpointiga laga soo qabsanayo somehow kolley waxaa idin sii doonaa general information hadhowna waxa waaye qof walba markii furaha la siiyo asigaa sii geli doono oo sii baari doono oo wax badan raadsan doono marka deeqda waxbarasho mar walba waxaa loo yaqaanaa waa financial aid waaye waa kaalmaatii dhaqaale oo lagu siinayo waaye loogu talagalay dowladaha Afrika iyo Aasiya ee soo koraya in la siiyo fursada waxbarasho marka scholarshipyo badan adduunka ka jira dunidu way ballaaran tahay dal walba waxa Afrika wuxuu siiyaa scholarship ama waxa uu siiyaa fellowships kala duwan oo loogu talagalay international student-iga ardayda dalkaas waxa ka baxsan soo apply gareynaya dalalkaas marka scholarshipyada adduunka way ballaaran yihiin dad badan oo Soomaali uu ku guuleystay oo tusaalooyin ayaa maanta waxay ku kala nool yihiin dowladaha adduunka ugu waaweyn Mareykanka Canada Ingiriiska Jarmalka Holland taa hadda caawa ina quseysa waxa waaye dalka Netherland fursadaha waxbarasho ay ka jira way badan yihiin waxa ugu weyn fursadda loo yaqaano OKB oo loo soo gaabiyey Orange Knowledge Program ka ayaa inta badan Soomaalida loo ogol yahay Erasmus waa jiraa World Bank Scholarship bixiyana jira marka taa hadda xooga aan saari doono oo inta badan sanadihii u dambeeyay Soomaalida ay ku tagayeen oo aniga aan kamid ahay
oo dadyo kale ay ka mid yihiin scholarshipkaas caawo in yar oo faahfaahinaan inaan ka dhiibaan rabaa inaan isku dayo. Okay, waxaan u malaynaa PowerPoint-iga inuu hagaagay. Okay, nice. waa hoos u soco faahiye haddii ay suurtagal ay tahay. Page-ka afraad hadda tegi karto. Okay, okay, aad u mahadsan tahay. Marka qodobka afraad inaad qualified u noqoto deeqda waxbarasho waxaa ka mid ah motivation letter inaa mataqaanaa aad qorto. Motivation letter habka loo qoro waxaad ka helaysaa Google ama YouTube aad ka helaysaa. waxa ugu weyn ee motivation letterkaas loo qoro waxay tahay inaad ku caddayso mataqaanaa xirfadaada iyo aqoontaada iyo why are you applying for this scholarship, sababta aad u apply garaynayso scholarshipkan waa maxay. intaasaa ugu muhiimsan motivation letterka. waxaa kale oo muhiim ah inaad haysato loo baahan yahay CV. CV-gaaga waa inuu qurxoon yahay. CV qurxoon oo la akhri kara aana tiro badnayn waa inuu yahay. waxyaalaha kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah recommendation in lagaa bixiyo. recommendationkaas 2 qola kaa bixi karto. qolada u shaqaysid markaa way kaa bixi kartaa, qolada jaamacadda aad ka soo baxdana way kaa bixi kartaa. marka intaas hortooda qofkii haysta waxa waaye waa qualified waaye, qof u qalma deeqdaas waxbarasho. uu sheeg leenda maxay idii soo waclamidino saari kartaa dadka hadlayo. ها أنا اسكو صح أنا صار إن شاء الله قبكي أموت كرين وأنا كسر دونا دمنا ومصل عون دونا إن شاء الله. Okay, marka lixdaha waxyaalood aan soo sheegay de qualified aad ku noqon karto inaad deeq waxbarasho heshay. jaamacadaha oo dhan ma kaa wada rabaan. jaamacadaha qaar waxaa laga yaabaa 1 2 3 inay kaa rabaan, sida 3 u horeyso kale 4 u horeyso kale ayaa macquul ah in أول مدة هاي محمد هم كبح. okay waa maasantahay. marka in CV-ga iyo shahaadada ingiriiska iyo motivation letter saddexdaas in laga rabo ayaa u badan meelaha qaar. page-ka ku xiga marka intaa laga soo gudbo aad ogaatid waxyaalaha laga rabo. waxaa rabaa marka inaan in yar bidhaamiyo qaladaadka ugu waaweyn ama dadka apply garaynayo ay mataqaana ay galaan, ama waxyaalaha qaladaadka ugu badan oo aan arkay ee dadka Soomaalidu ay galaan. kolley waa common mistakes la galo waaye. muhiimna ay tahay inaad fahamto khaladaadkan inaad ka weecan karto. number 1, CV aan iswaafaqsanayn haddaad dirto ogow waxa waaye waxaa fudud in lagu soo diido deeqda waxbarasho. marka CV-gaaga waa inuu hagaagsan yahay, waafaqi karaa waxa adiga aad soo baratay, waxa aad ka shaqeyso. waxyaalahaas oo dhan waa inuu mataqaanaa ii sheeg yani scholarshipkaas ama deeqdaas waxbarasho waafaqi karaa. haddii uusan waafaqaynin CV-gaaga waxaad ogaataa in mataqaanaa rejecti lagu qaban karo. faayo waxyaalaha masalan la gara waayo kale may weli ma dhameen page-kaas. ma hadda i weydiinayaan mise hadhow? markii aad dhamaysid insha Allah way qoranayaan wixii su'aal ah. markii aad dhamaysid insha Allah way weydiinayaan. Okay,
marka CV-gaaga hadduu CV diyaarsanayn uu yahay oo CV aan laga shaqaynin oo incompatible uu yahay waxaad ogaataa in lagu soo diidi karo waxbarashada. Okay. Okay. waxyaalaha oo kale waxaa ka mid ah ina upload gareyso may ku soo celi kartaa uploading files that are incompatible ayada naftigeed waxa waaye inaad upload gareyso oo aad geliso faylal aanan waafaqsanayn shuruudda scholarshipka haddaad geliso ayadana waxa waaye waxaa laga yaabaa in lagu soo diido. Okay. waxaa kaloo ka mid ah providing hal mar raalli okay inaad provide gareyso PowerPoint-ga ma dhaqdhaqaaq way amsanaa أنا كنت بدي مرتي إنا دمس أمريه. ama qodob u dambeeya markaad taga markaasaan dhameeya insha Allah. marka inaad submit gareyso waxyaalaha keenayo CV inaad submit gareyso wax aanan complete ahayn waxaanan complete ahayn haddii aad submit dhahdo way ku daayeen dokumentiyo qaldana submit dhahday waxyaalaha mataqaana information qalada submit dhahday waxyaalahaasoo dhan waxay keenayaan marka inaa mataqaana lagu soo diro mar walba make sure hubso waxa aad apply gareynayso waxa aad direyso mar walba waxa waaye waa inaad aad ogtahay in mataqaana markaad aadan apply gareynin ka hor inaad akhriso waxaad apply gareynayso sida grammarka hadduu kaa qaldan yahay inaad iska saxdo haddii waxaa soo printer garey lagu dhaho hard copy inaad saxdo inaad peer review ku sameyso waxa aad apply gareynayso inaad dib u akhriso dhowr mar aad ku celceliso qaladaadka aad saxdo waxyaalahaasoo dhan waxa waaye ii sheeg waxay keenaysaa marka inaa mataqaana aad ku guuleysato inaadan deadline-ka aad la socoto deadline-ka hadduu ku dhaafo haddii lagu dhaho waxa waaye 5 saac iyo 59 daqiiqo deadline-ka ah kahor inaad diri karto meelaha kale oo aad ka qaban Soomaalida qaladaadka ugu waaweyn ee Soomaalidu ay galaan waxaa ka mid ah copy paste-ga ka mid ah qofa sanadkii hore ku guuleystay scholarship waxa uu leeyahay dokumentigaaga ii soo dir dokumentiga markii qofkan u diro oo qofkan kale uu ku caawiyo sidii motivation letterkii sidii uu qoraa dadkan waxa waaye computerkooda wixii sanadkii hore arday soo apply gareeyeen meeshii uu wada jiraa way soo qabanayaan marka waxa la garanaa in aad tahay qof copy paste ah oo qof kale qoraalkiisa soo xaday waxyaalaha keenaya in lagu soo diiday kamid tahay. Okay waxyaalaha kale waxaa ka mid ah inaad iska ignore gareyso instructionka tusaale kale instructionka waxa qaabka mataqaana ii sheeg yani waxa sans sameeyaa lu dhahay okay waa sameey weysay su'aala waxa laga yaabaa hal su'aal inay tahay adiga hal su'aal kula muuqato laakiin laba su'aal inay ka kooban tahay marka waxyaalaha oo dhan inaa mataqaana ii sheeg iska ilaaliso instructionka haddii lagu dhaho waxaan PDF ka soo dhiga haddii lagu dhaho inaadan shahaado oo mataqaana sawir ahaan inaadan u gudbin ama ayadoo waad inaadan mataqaana aadan gudbin mar walba wixii raac lagu dhahay inaad raacdo waxay keenaysaa inaad mataqaana deeqda waxbarasho aad ku guuleysato waxyaalaha kale inaad ignore gareyso scholarship-yada yaryarka ah waxa waaye waxay keenaysaa mataqaana inaad scholarship weyso marka in scholarship aad ragto
oo yar ha weynaado ama ha yaraado inaad apply garay karto oo aad raasi karto is very important way حتى haddii lagu dhaho yani scholarship kan waxa waa lacag yar lagu bixina okay apply garay waxa la yaabaa dad badan competition inuusan lahayn laakiin faa'iido badan aad ka hesho marka waxyaalaha mataqaana oo qaladaadka Soomaalidu ay kala sameeyaan waxa kamid ah CV-giisa taa kuwaadan ku noqona oo aan iswaafaqsanayn waxa tusaale ah qof ah wuxuu ka shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka uu ka shaqeeyaa waxa uu bartay beero bartay wasaaradda caafimaadka ka shaqeeyaa uu yiri xogaa isma keenayso qofku uu kula yaabaa ninkan backgroundkiisa oo waxbarasho iyo waxa uu ka shaqeynayo ma islaan ama waxa laga yaabaa waxa uu ka shaqeynayo tusaale kale wasaaradda waxbarashadu ka shaqeeyaa waxa uu rabiyaa inuu mataqaana agriculture uu apply gareeyo backgroundkiisa laakiin inuu ahay beer inuu ahay de laga yaabaa marka mar walba waxa iska ilaalisaan saddex shay muhiim waay waxa aad soo baratay waxa aad ii sheeg mataqaana ka shaqeyso waxa aad apply gareynayso iyo dawladdaas aad scholarship-ka deeqda waxbarashaad ka apply gareynayso waxa aad apply gareynayso ayagu muhiimad ma u leeyahay masalan dawladda Netherlands oo kale meelo ay focuska ay saartaa jirto oo priority u ah priority-gaas waxyaalahaas u ah iyada dawladda mataqaana ay sheeg yani adiga waxaas ma doonaysaa ma rabtaa inaad apply gareyso marka ina iska ilaa waxyaalaha iswaafaqsaneen ka mid tahay Soomaalida ama waxa laga yaabaa qofkan waxa uu ka shaqeynayo waxa uu mataqaana ay sheeg oo soo bartay iyo waxa uu rabay uu apply gareynayo saddexdaba inay kala duwan yihiin marka waxyaalaha waxay keenayaan marka in isla markiiba waxa waaye reject lagu soo qabto taa marka waa common mistakes ama dadka inta badan apply gareynaya scholarship-yada ay sameeyaan iyo kuwa Soomaalida qaas way ku jiraan page-ka ku xiga marka waxa tusaale ka bixinayna marka scholarship-ka ay bixiso dalka Netherlands waxa ugu weyn Orange Knowledge Program dalkaas Netherlands iskale wasaaradda arrimaha dibadda mataqaana scholarship-kan bixisa dawladda Netherlands bixisa waxa uu wakiil wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu wakiil qola naafig la leeyahay naafigaas marka jaamacadaha u kala qaybinay marka taa waa mid laakiin programka waxa la dhahaa Orange Knowledge programka mar walba uu isbedeli karaa oo ay sheeg yani 1980 OKB lam dhigi jirin magac kale la dhigi jiray waxa laga yaabaa programka magaciisa inuu isbedelo laakiin mar walba deeqda waxbarasho way jiraysaa marka hadda la joogo sanad shantii sanaba abdiida lagu sameeyaa dawladaha mataqaan Afrika dawlad walba wax la siiyo tusaale kale Soomaaliya hadda la joogo waxyaalaha focuska ay saaraan waxa kamid ah food security-ga beeraha lowga iyo security-ga iyo cilmiga badda xoolaha kulli waxaas oo dhan waxa waaye meelaha ay focuska ay saaraan macnaha qofkan waa priority weyn uu leeyahay dalka Netherlands markuu Soomaali yahay oo takhasusaadkan uu raadinayo aad iyo aad loo tixgelinaa dadka kale asaa ka horeeyo dadka kale way helayaan laakiin asiga ka horeeyo asiga mataqaana ay sheeg yani number 1 waa marka meelahan waa ina mataqaana de xooga saarta ama waxa la yaabaa dhaqaale ina baratay laakiin wax kale inaad apply gareysaa rabtaa marka kaliya motivation letter-kaaga waxa ku cadeynaysaa inaad link aagurtid waxa aad soo dhigatay iyo waxyaalaha mataqaana xooga ay saaraan Netherlands ee Soomaaliya ay ka caawiyaan xogaa link ina u sameyn karto marka link u sameyso waxa la yaabaa at least ina ku guuleysato ayaa macquula kan kaliya maaha World Bank oo kale scholarship oo bixiya oo ama Erasmus oo kale fursadahaas marka dadka iyaga kale aan meelahan dawladda Netherlands ay xooga saaraynin ayay siiyaan marka laba barnaamij ay bixiyaan inay qofkan ay short courses ay siiyaan iyo inay siiyaan master inay siiyaan marka tusaale hadda ka bixina jaamacadda Wageningen University
waxyaalaha inta badan ay short courseska markii ay dhiibayaan waxyaalaha ay qofka ay ku doortaan page-ka ku xiga okay secret weyna siinaa oo ade waxaan sida loo apply gareynayo waxaa laga yaabaa in mataqaanaa okay markii la apply gareynayo waxa ugu weyn ee aad inaa fahamtid ay muhiim ay tahay waxaa waaye number 1 horta hore jaamacad walba oo Netherlands ku taalo website ay leedahay websitekaas waxaa ku yaalo informationka dhan oo scholarshipkaas ku yaalo laakiin waxaa ku taalo lacaga ku taalo short course arkaysa lacaga ku taalo marka dadka markay lacag arkaan isla markii hore gadaal ay u noqonayaan lacagta way tiro badan tahay sax waaye qofka Soomaaliga uu bowda gadaal u noqonaa laakiin waxa ku hoos yaalo scholarship ku hoos yaalo marka scholarshipkaas haduu galo wuxuu arkaa marka in scholarship ay OKB ay leedahay short courses-kan jaamacadaha way ku kala duwan yihiin procedure-ka ay marayaan laakiin inta badan waxyaalo oo waxa jiro oo muhiim u ah number 1 waxa muhiim u ah mesela محمد لو مغلط هلا محمد الله اها محمد فرح كسرعة اوكي عفوا و مال كتير وجوده دي رب وجوده ترى لهذا حتى البروجرام كمركا أنا ما تقول dadka baxan uu leeyahay hada garajaan ay geesan madaxweynaha geesan kullu odayaashina koorta wasi odayaasha ma hayniya okay عاد كسرعة okay marka aniga programka markii ugu horeysay waxaan ka xareeyay short course oo 2022 igu ekayd maaragtay 23 maaragtay 2023 isla sanadkan waxaan ka soo xareeyay masterka oo aan soo xareeyay saddex meelahaas oo soo xareeyay كل نفسي طبعا وإلهي وإيشي وهولستي وهذا سفرتي في خمسة كثير مثلا إن شاء الله مار مرة بروجرام كاس كل أرتو محامين باسر هاي information كنا كده كيو مارك وانا إنتو شيء إنتو قومي نسمي أساس شيء marka programkan waxa waaye Soomaalidu aad baa maaragtay doorka loo siiyaa waayo wadamada inta badan hadda scholarship-kan u furan yahay waa wadamada yani Soomaalidu inta ka faa'iideysato macnaha wadamada ugu yaray kamid tahay inta loo fiiriyo marka Soomaalidu marka aad maaragtay doorka u siinayaan ayagu وانا program hadda marka la fiiriyo scholarship-yada kala iyo waa ka fududahay xagga research-ka iyo marka loo fiiriyo scholarship-yada kala kaliya wuxuu rabaa inaad documentary saxdo oo wixii asi nidaamsan oo saxan oo si aadan oo aanan wax ku jirin inta documentary la iska rabanayo maxamed baa soo sheegay marka anigu waxaan ku jiri lahaa scholarship-kan maaragtay orange technology program aan sanadkii 2 jeer oo furmaa waxay leeyihiin round 1 iyo round 2 ayuu leeyahay
round 1 wuxuu furmaa sanad kasta February uu furmaa sanad kasta markuu February furmo adigoo ilaa March uu ku egyahay roundiga kale tan isla sanadka wuxuu furmaa 28 June wuxuuna xirmaa 5 September soo qofkuna waa inuu ku xisaabtamo labadaas roundi inta badan awl roundiga round 1 iyo masar ku jiri jiray hadda waxaan maraynaa masar inay ku soo dareen round 2 wax inay ku soo dareen marka qofku website-ka faahiya idil wadaagi doona qofku website-ka galo waxa ku qoran information dhan oo scholarship-ka ku qoran codkiga waa inuu hooseeyaa محمد أمغرنا codka odaa tiimka qaar wax soo dhahayaan codku hooseeyaa waxay yidhi xaseeyaa laakiin insha Allah waan mar hadda yani waxa waaye meel yaro experience marka taas waa keenaysa marka roundiga round 1 ayuu furmaa round 1 kala February markuu furmo qofku markuu inuu ku xisaabtamo sida deadline-ku inuu ku xisaabtamo oo labadaas roundina ayuu qofku isha ku hayo markuu scholarship-ka uu xareynayo sale short course-kana round 1 kale markuu short course xareynayo qofku short course-kaas markuu xareynayo mar walba xareynta scholarship short course-ka uu ka fududahay marka loo fiiriyo process-keeda iyo document-yada iska rabaan lacag qaaratan way yartahay laakiin OPD ahaan waa laga ka siman tahay OPD scholarship marka xareynaysa way same ka wada yihiin masar iyo scholarship maalkin hal iyo short course way ka siman yihiin laakiin jaamacadaha way ku kala duwan yihiin jaamacaduhu way yara short course ka fudud short course wuu fudud yahay xareyntooda qaabka wuxuu marka qofku markuu linkiga ku dhufto oo scholarship-kii information-kii oo dhan halkaas uu ka arkaya oo waxa la iska rabo shuruudaha la iska rabo in meelaha oo focus country ama jiro wadankaada meesha hadda maxamed soo sheegay meesha oo wadankaada ay priority ka siinayaan ayuu qofku soo ku xisaabtamayo shuruudihii kale meesha ku qoran oo scholarship ku saabsan qofku wuu fahmi karaa oo meeshaas ka akhristo kadibna isla website-ka dhexdiisa ayuu qaybta wuxuu tigi karaa maxaa la dhahaa how to apply ayuu ka tigi karaa qaybtaas markuu tago wuxuu ka helayaa linki oo jaamacadihii dhan geenayo ka helayaa soo markuu qofku linkigaas ku dhufto wuxuu tegayaa jaamacadihii oo meesha ku jiro oo dhan ayuu tegayaa kadibna jaamacad meesha waxa ku qoran programkii ama master ahaado ama short course ahaado iyo jaamacaddii iyo intuu soconayo oo short course uu soconayo ama masterka intuu soconayo waxaas oo dhan meesha ku qoran qofka marka inuu short course-ka ama master wuxuu rabo marka uu doonayo inuu xarayo marka programka uu dhufanaya kadibna meesha waxa ku helaya information-kii qaabka uu xareyn lahaa haddii short course tahay meesha ayuu qofku ka helayaa isla meesha markuu ka helana form inta badan ayuu direct meesha looga xareeyaa short course oo link uu meesha ka helaya qaabka loo xareynayo meesha ku helaya waxa ku arkaysa how to apply ama apply online ayaa meesha ku qoran ayaa ku qoran meeshaas uu ku fakilaya kadibna shuruudaha iyo meesha steps-ka la marayo kadib uu raacayo taas oo short course waxaan lagu xareeyaa masar markay tahana isla meeshaas marka qofku ku dhufto jaamacadda ku dhufto programka uu rabo meesha information-ka qof jaamacadda iyada uu sheegayso marka waxa loo maraa jaamacadaha inta badan marka masar la xareynayo waxa loo maraa nidaamkan study link-ka loo maraa study link-kaas baa ku dhufanaysaa registers ka sameynaysaa marka registration personal information gelinaysaa identity-gaada ku weydiinaya oo maxaa la dhahaa passport kale ku weydiinaya passport-kaada gelinaysa kadibna wuxuu ku gudbinaya information kale ku gudbinaya dan kadibna markaas iyo jaamacadda ka dooranaysaa programka ka dooranaysaa sida kadib samid ku haysaa sabin markaas direct asaa jaamacadda u gudbinaya jaamacadda markii dambe ay kula soo xiriiraysaa marka gmail ku soo diraysaa
waxay sameynayaan marka iyadu waxay rabto shuruudaha ay rabto linkiga ka xalin lahayd documentida wixii lagaaga baahan yahay dhan meesha kugu soo xusaysaa kadib adoo marka wixii kusoo xusay documentiyadii meesha kugu soo xustay adoo marka meeshaas ka ambar qaadaysa jaamacadda xareynaysaa soo marka xariisid jaamacadda saa marka u xareyso jaamacadda kadib iyada marka processkaas iyada ku xareynaysaa kadib markii qualificationkaada waxa soo hubiyaan oo hay'adda naafigada wax soo hubinaysa shahaadooyinka qofka marka saa usoo hubiyaan kadib jaamacadda dib ay kala soo xiriiri doontaa kadibna waxay ku leedahay OKB xarey OKB xareyna ku dhehayso marka waxay kusoo diraysaa linkiga ka xareyn lahayd waxay kusoo diraysaa maxaa la dhahay documentiga la isaga baahan yahay iyo kusoo diraysaa markaas adoo documentiga kaaga baahnaa meesha lagaga baahnaa meesha ku haysto ayaa maaragtay linkiga galaysa halkaasaa marka waxaa maaragtay ka xareyn doontaa OKB-da marka OKB marka waxa laba documenti la upload garayaa waa employer statement warqada iyo passport la upload garayaa linkiga marka ku dhuftana 3 su'aalood maxamed ii sheegaya arki doontiin su'aaluhu waa 3 su'aalood oo motivation aan wax yaroo aan badnayn waaye oo maaragtay maxaa problemka aragtay in address gareyso waddanka ka jiro waxa noocaas iyo koorsma aan xariisay programka aashirtay qayb waa qaadan doonta xalintiisa iyo institutionka aad ka shaqeysay iyo positionka aad hayso sidoo yani kii fogeyn doona waxyaalo noocaas marka saas ayaana idan loo xaray marka ilaa intaas waan maaragtay ayaan qaabkii processkii xareyntii halkaa ayaan u harayaa marka halka midoo kale maxmed waa la maqlaa soo maa aad iyo aad dhanka su'aalaha u gudbeen base waa waxay waxaan ku darayaa qofka marka uu xareynayo marka OKB scholarship horta ayuu bixisaa waa hal sano masterka ay bixiso ayagu hal sano unbay fan karayaan master short course-kana wixii ka yar waa hal sano ka yar waa soo qofku markuu inuu ku xisaabtamaa markuu master xareynayo OKB waa inuu tixda ku darsadaa in hal sano programkii ay hal sano ay bixiso master waxaa jira hal sano master waxaa jira 2 sano ah marka masterka waa inuu hal sano waa inuu maaragtay master hal sano haduu yahay waa okay oo hal sano waxa waaye ay way fan kareynaysaa haddaad doorato master 2 sano ah haddaad doorato waxaa xaqiijisaa in masterkaas halka sano OKB way bixin halka kale sano waa inuu jiro wax la dhahayo co-finance waa inuu jiro oo jaamacaddu waa inay halka sano kalena dabarayso ay bixinayso marka hadda OKB marka saa ku xareyso master 2 sano xareysaba oo co-finance lahayn OKB way fiirinaysaa waxay u arkaysaa inaan sanadka kale co-finance qofka soo marka kuma aqbali karto waayo hal sano kuma nasabki macnaha qabiyo ka noqon soo marka qofku inuu ka xisaabtamo marka inuu ku xisaabtamo halka waxa kale aan ku diraa waxay tahay marka rabto inaad aad su'aal ka soo qaad wuxuu furmay scholarship-kan sanad waxa 2 jeer oo furmaan aan dhahnay marka koowaad waxa waaye February oo furmaan February haddaad master xareynayso masterkaas waa inuu bilowdo October isla sanadkaas waa inuu bilaabanayo hadduu ka hor soo bilaabanayo suuragal maaha short course-kana masterka waa October waa inuu bilaabanayo October-teeda kalena waa inuu dhamaanayo hadduu yahay hal sano hadduu co-finance jirna waa inuu 2 sano Allo, assalaamu calaykum. مثل كلام وحكوك كده وحنا ممكن صار قرار ده حريني وانت وحرينا عليهم codka waxba fiican lagama maqlay ustaad may waa ina saaxiib dhimale insha Allah waan degeysana ka mud gelin aan ka saar duu ma salaaman karo marka mud galasha marka intaas ayaan ku gabagabeynayaa إن شاء الله جماعة سويت أكتا سلوك الله إن شاء الله
dhanka su'aalahan u gelaynaa inaad diyaarsteen aan filayaa waxaan ku horreysinayaa muuse maxamed ma naqmashaa السلام عليكم. calaykum assalaam ku soco واكم مغلا ما تنتهي وشرف عايش توصل قلبك أستاذ ومقعد مسلم حميد وأنا سمع waxaan ka rabaa inaan marka weydiiyo su'aalood oo badan su'aasha koowaad ayo أستاذ وحقيقة أنا سؤال أنا أجلس شانس بليز موت قلا قفك أن لو يري بليز تعوك لا هلنا أو وقت إنه سامحه أو دايرتنا يعني كيف إذا سنة موت قلا بليز هذيك لو ينجح معنا سام أضوى مع ستة أستاذ وعن شيني أنا مغشيت عادي أتصعد أستاذ وحن كويدي وحن ربنا ويدي ستة سؤال ولا نظام الشغلانة ويرون بعد أستاذ عنو يجري ولا محمد دور فيلي أنا كانت كذا سكتيت تسعوران سؤال كواد أو ديني أستاذ كحوي برنامج كان سكولرشيب كان دوكيومنتيدا laga rabo manoo sheegi kartaa oo haddii su'aal IELTS oo kale laga rabo ama laga rabo qof experience lagu xirayo intaasoo sano ah su-aashiisa labaad waxa weeye waxa scholarshipkan wuxuu gaar u yahay fiiliyada gaar mise cid kastoo xiriirsan kartaa sida engineeringka ama healthiga ama cid kasta ma xiriirsan kartaa su-aasha saddexaadna waxa weeye noo sheegi kartaa wax aan competitionka oo kale qofku uu kaga bixi karo oo macnaha fursadiisa kor u qaadaysa si uu guuleysto barnaamijkan hal iyo labo waa mahadsantahay aye amiin هلا اوكي امين ان شاء الله مركب بحنا معنا إن شاء الله اوكي saddexdaa su'aal محامين كسعة هلا محمد يس معلم مسؤول okay. haddaan ka jawaabeynaysan marka la soo noqon yaasan nagu soo noqonaysa waqti ugu faa'iidaysan badnaansho inuu waxaa codkayga si fiican ma loo maqlaa عاديا si fiican ma lii maqlaa عاديا ها محمد وقت مغنى هلا محمد انا معلم خدك مسؤول عنه si محمد كبحان جعله su'aal si fiican ma lii maqlaa عاديا محمد وقت مغنى okay saddexda su'aal oo walaalkeenna weydiiyey documentiska la iska rabo documentiska la iska rabo waa soo sheegay waana fududahay OKB qolada scholarshipka bixisa waxay ka rabtaa laba documentiga ugu muhiimsan labada documenti ugu muhiimsan waxay kala yihiin employer statement iyo passportka ay ka rabtaa qolada oo fanka dhiibis way iyo saddex su'aal ku weydiinayso qolada marka kow aad apply gareynayso jaamacadda waxay ku dhigi kartaa intaasoo documentiyan ka rabnaa sida shahaadooyinkaaga IELTS-ka CV-gaaga waxyaalahaas ka rabnaa ay ku dhigi karaan marka qolo walba waxa ay ka rabto ayaga ku soo sheegayo ayaga ku dhahay waxa iyo waxa ka rabnaa taa dhib malaan bas qofka instruction inuu raaca muhiim ah cid kasta ma xareysan kartaa cid kasta way xareysan kartaa laakiin dawlad walba Netherlands waxay siisaa meel priority-gaas marka adiga eeg haddii xiriir kala dhaxeeyo waxyaalahaas ay bixinayso apply garay haddii xiriir uusan jirinna iska apply garay waxa laga yaabaa in mataqaana ay sheeg yani takhasusaadka kale xoogaa halka qofood iyo labada qofood in la siiyo laakiin meelahan muhiim ah waay waxaan waxa waaye tartankiisa aad mataqaana fursadiisa aad ay u ballaaran tahay tan maxaa sar u qaadi kara waxaa sare u qaadi kara instructionka inaad raacdo
tusaale short course markii ugu horreysay waxaa helay 2018 sanad walba waa helay sanad walba 2 short courses ilaa masterka aan ka helo marka waxa ugu muhiimsan secretka ugu muhiimsan ee aan raacay waxa waaye khibradeeda ahaan waxa waaye instruction kan raacay instruction ka hadaad aad u raacdo wixii laga rabo aad keento copy pastina iska ilaaliso su'aashana sida lagaaga rabo aad ugu jawaabto waxaad noqonaysaa qof ku guuleysta scholarship-kaas aad noqonaysaa inaan ka jawaabaan filan way mahadsan tahay haye maxamed dhore soo dhow waxaan rabaa su-aal hadda baxday laakiin aan si kale inaan u weydiiyo rabo ustaadii waxaa gaar ahaan ku haya English letterka marka kulliyadaha dhan English letterka ma ka siman yihiin base waxaa jira kulliyado exceptional ah oo qofka waxyaabo kale loo tixgelinayo sida inuu courseski jaamacadda secondary-ga uu soo qaatay luqadda Englishka oo macnaha fiisadaha ku qaadanayo luqadda Englishka tixgelin noocaas oo ma jirtaa mase waa lagu qasban yahay English letterkaas la helo هاي محمد اوكي معنا انا هذا السؤال بربنا نهلو ما يسكت سؤال على جواب ولا لو سو غارسان اوكي انجليشka master marka ay tahay waxa sharti ah IELTS ina haysato ama TOEFL ina haysato jaamacadaha qaar waxay ku leeyihiin okay waxaan oo keentaa sheeg inaad ku soo dhigatay jaamacadda Ingiriis inaad ku soo dhigatay cadeen oo keen ee qaarkood ku leeyihiin oo hadii aad ku soo dhigatay Ingiriis qaada codkayga loo maqlo dadka qaar miyid inay galaan rabaan jeclaalahay okay hadii aad lii maqlo jaamacadaha inta badan markii aad master apply gareynayso waxay ka rabaan shahaado Ingiriisi ka rabaan ama IELTS aad ama TOEFL aad qaarkood waxay leeyihiin imtixaanaad u gaar ah oo sida online placement test ee qaadaan oo kale imtixaankaas oo kale ayaga ka qaadayo waa gelaysaa jaamacadaha qaar waxa laga yaabaa inay ku dhahaan inaad luqad Ingiriiska wax ku soo baratay cadeen nookeen laakiin taama badna waa naadir waaye inay ku dhahaan laakiin hadii Soomaali aad tahay passport Kenya ama Uganda iyo dawladahaas hadaa wadato waxa laga yaabaa in Ingiriis lagu weydiin laakiin mostly Ingiriiskaas IELTS muhiim waaye oo jaamacadaha way ka rabaan markii master ay tahay ama PhD ay tahay laakiin short courses ka inta badan jaamacadaha ma ka rabaan وبالله هذا ما كنت محمد وان تصارد وانا ان شاء الله دنيره رموف بعدها يا ان بدن وان عملوا قادم marka qof walba rumuuf badhahay ma soo laaban doono qofkii aan mudgelin haye su'aalahan noo soconaya waxaan ku xijinayaa maxamed xasan ma maqashaa waayahay xasan ma maqlo bedel ma maqashaa aad baan ku maqlaa sax ay ku soco soo dhawo waa group karta waa goor wax yar ka hor aan ku soo biiray su'aashan rabo marka inaan fahmo waxay tahay salaano kale main points ko yani Soomaalida loo ogol yahay inay xareeyaan oo kale waa qaybta maritime-ka oo security and rule of the law waaye aniga marka qaybta san marinkan dhameeyay oo aan ka baxay marka waxaan doonayaa inaan apply gareeyo markaan isku day inaan apply gareeyo xogta ayda marka waa waayaa qaybta ayda ama marka sirjinka gali uu yiraahdo oo qaybta orange marka waa diidaya sometimes laakiin si kale marka u gelisid si dadban u soo baxaa marka waxyaabo marka aan rabo in oo istaadka aan la wadaago ama oo inuu ii sheego seebaan u apply gareyn karaa ama seebaan ku heli karaa waa su'aashay waa mid kaliya su'aasha kale aan weydina waxay tahay hadda ma taas laakiin Amar awi soo dhow aad u dhowahay maasan yihiin asxaabta qaaliga ku guuleystay barnaamijka haddii su'aasheeda aan soo koobo waxay tahay macad holan ku yaalo oo IHS ayaa waxaan ka helay short course program ayay soo aqbaleen marka waxaan rabaa qaybta orangena xareeyo sida la sheegana focus area waxa waaye maritime security-ga iyo food security-ga agriculture-ka aniga short course la soo aqbalo waxa waaye green cities for eco friendly marka waxaan rabaa asxaabta inay iga jawaabaan green cities for eco friendly
ma hoos tagayaa focus area-da haddii uu hoos tagayana yes or no jawaabteeda saasaan rabaa aad maasantiin maasanta ilaa 3 su'aal baa israacinayna farxii soo dhow farxii man maqashaa farxii maxamed فرحية محمد هاي صح أنا قامت ده هو صوت تكتي سوداء علي من مقشع سوداء علي هاي حنان من مقشع هاي كسعة أستاذ وما سنتهي دمان أصحابتنا ومهد علنا يلود أستاذ وبدأنا سنسيا إن إنه شرحان إن فرصة دانجرتو إن أنا حنقة في عرفت دانقة وفون سؤال عن ويدنا وحيت هاي اللينك استادي أستاذ دائما بنتي أو شيء يكون هاي تنقل تقفكم مصدر كحرين عيو ما إنه صومر كورشس كاس ما قنبل سرمية مثل صو لينك صو أذكر أو مصدر كه وما سنتي ما سنتهي محل كسعة ما جوابتها أحمد 6 سؤالات هل مسرعي هذيك محمد فرحتي خلاص سؤال شو قدام السريع ما سؤال كوباد oo habka loo xareeyo ama cilad hadii ay jirto cilad hadii jirto saasan u fahmay inay cilad haysato cilad hadii haysato wala jaamacadaha waxay leeyihiin qolo shaqadoodu ay tahay cilada ku haysato inay ku sheegaan ka jaahil bixiyaan marka cilad walba oo ku qabsatay iyo waxa sidaas ma ustaad su'aashay waxay tahay su'aalaan oo kale maarin time inaan xareeyaan rabaa oo qaybta security ah marka apply gareynayo sidee baan u apply gareynaa jaamacadaas ugu raasay ilaa marka qaarkii markaan geliyo meesha ayada ah waxaan u baahanahay ima soo baxayo laakiin si kale marka u geliyo way soo baxay marka qaabkan u apply gareynayo un baan ka rabaa ama qaabka jaamacadaha loo apply gareynayo bis inta ay soo koobmaasanta qaabka jaamacadaha loo apply gareynayo jaamacad walba meesh instructionkeeda meeshay ku taallaa laakiin sir guud oo jirta waxa waaye sida u hesho jaamacadaha adiga kugu habboon Google ka wada raadi kartaa jaamacadda adiga marka mataqaana takhasuskaaga bixisa wixii aad fahmi weyso ama hadii ii sheeg qaabkay u hayaan iyo waxa ay bixiyaan ayaga la xiriiri kartaa as soon as possible I think inay ku soo jawaabayaan rajayna marka su'aasha asaasan inay u fahmaan rajayna aad ku fahmay aad maasan shukran okay yarka su'aasha labaad awees aweeso mataqaana haddaa heshay admission haddaa ka heshay hor u soco apply garay OKB ama ha ku soo diidan ama ha ku yeelan laakiin ayaga waxyaalahaas mataqaana focuska meelahaas waay hadii waxyaala oo mataqaana oo agriculture-ka ama deegaamin ama dhir iyo somehow meelaad agriculture ka soo geli karta linki u abuuri kartane aad u fiican tahay laakiin ha ka quusanin ayaga meelahaas waxay u tahay target u tahay laakiin macnaheedu maaha kuwa kalena ma dhiibayaan ma way dhiibi karaan su'aasha saddexaad masterka iyo short courseska anoo short courses soo helay ma master heli kartaa maya adoo short course helin aad master aad heli kartaa labadooda isku ma xiran waayahay su'aal kale oo weydiin hadii jirto waqti waan hayaa waxaan أستاذ لول سدو لول حسن ما سنتها فهي محمد أمين أيه وسعوا شاش تصقر والمسين عائلة إن أو كوات وحواي عائلة ورقة تليجرا وما certificate كاس مركز كوب admission كعد بالبنايو قصب ميا إنا جود بيو أمسك جدال وك جود بيكرا مدة لبات وحواي مصدر إنا أبلا جريا روا مركز أتكو كاعد هاي أيوة خوصا نقولنا لول أبلا جريا وفرمي إنسان مسلسلات كاري أسوا مدة سدحات أستاذ زياد بن فلان الحين سودو
عبد الرحمن حسن ديره ودوها استاذ ما مقشعر عاديا كسر شاشه aad baa umahadsan tahay walaal faahiye iyo ustaadkaba aad baa umahadsan tihiin anigu waxaan rabaa wax yar oo mataqaanaa commenti ah su-aalna waa wataa hadda ka hor baan ableegareeyey hadda ka hor baan waxaa ableegareeyey barnaamijka laftigiisa waxa waaye okbda ah bishii shanaad meelahaas baa waxa weeye waxay soo siiyeen mataqaanaa inaysan dooran marka waxaa ableegareeyey wuxuu ahaa maritime and security and rule of law uu ahaa waxaa ableegareeyey marka waxay ii soo direen in waxyaabaha caqabadaha keentay in la dooran waaye in alignment course contentiga ah iyo counter statement in labadaa midkooda ay tahay ma garat haddana iyadoo saa tahay xooggaa saaray oo waxa waaye in badan baa ka shaqeeyey in mataqaanaa aan isku adaadiyo marka maxay tahay marka caqabada wax walba waa soo dhamaystiray employer statement baa soo dhamaystiray everything waa soo dhamaystiray waxaan idis lahaaba waa lagu dooranayaa marka wax kale motivational xataa su-aalaha motivationka xataa si fiican baan uga jawaabay waafiya waqti baan geliyey marka ma laga yaabaa maritimekaas ka tagay security and rule of law aan ku qoray marka ma laga yaabaa in maritimekaas ay su-aasheedu mataqaanaa ay kasbatay in lay dooran waayo marka intaasaan weydii lahaa aad baan umahadsantaha waxaan kusoo dhaweynayaa cabdilaahi maxamed waa mahadsan tahay ustaad faahiye iyo akhyaarta kale oo na siisay faahfaahinta quruxda badan su-aashaan hore u galahayaa waxaan weydiinahayaa afrax ustaadi waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hal mar adoo raalli inaa sharaxda employee statement dad kale meeqo qofay rabaan dadkan ma tiro xadidanay rabaan mise waa iska furantaa tirada ta saddexaadna waxa weeye master iyo short course hal mar ma wada xarayn karaa inta masterna ma apply gareyn karaa short course ma apply gareyn karaa mahadsantahay thank you فهي صح شكل جواب ان شاء الله اسمع جواب هذا بالمصطف هاي محمد ها محمد تعرف مغنى عفوا أرتو وفاضل سؤال بيوكنا سنين حالة لها دي أو سؤال سفي عنا القوانين ما رأيي غير هلا الحلا عشتا دمر عادي أرتو هذا صوت فرص المصدر هذا مكاس هذا صلاح رئيسه أرتو ماشى وحكد البنيستا الرجال على الله كالحرين كسا ومدول بوحبو كوسو جوابي كرا لكن ماشى أصعد ومصدر عبارة مع الله سكولرشيب وحل ميل واي marka hadaa xareyso ayaga mid bay ku soo jawaabaya hal mid baa helaysaa marka adiga laba hal mid waa iska xareyn kartaa labadooda hal mar waa xareyn kartaa laakiin hadhow mid baa helaysaa midii marka adigu aad marka aad saxdo natiijada adiga sidii la rabay noqoto waa helaysaa oo hadda ma ahan laba hal mar misla xareyn kartid laba ma hadda meel hadda kuma qoran tahay ma arkin laakiin hadaa xareyso oo mid baa helaysaa aad saxdo hadaa wada sixinad oo kulli haduu reject waa la kulmi karaa taas waaye hal mar adoo raalli su-aashii kale xasiisi employee statement macnaha maxay tahay iyo meeqo qof ay tiro ahaan maxadanta okay horta tiro ahaan number oo cadayman ma jiro oo intaasay number ay qaadanayaan meel ku xisaaban ma jirto ay markaa arkaan ay oo budget u heli karaan bay dooranayaan laakiin wadan kasta waxay u qoondeeyeen oo aan number ah hadda ma jiro intaan ka ogahay inta kale warqadan kaleeto employer warqada ugu muhiimsan oo go'aan gaarayso hadduu qofku oo qorxiyo saddexda su'aalood meesha ku qoran oo haduu linkiga meesha markuu galo qofku ku qoranna oo si fiican u qorxiyo motivationka hadduu si fiican u qorxiyo employer statement-kaasna u qorxiyo waa inta badan ayagu waxa waaye inuu helo ayay u baahan tahay scholarshipkaas marka warqadda employer statement waa template waaye ayagu leeyihiin ay kuu soo dirayaan
jaamacadda kula soo wadaagayso oo intaadan scholarshipka aad xareyn jaamacadda kula soo wadaagi doonta marka warqadda wax kale maaha waa template wax ku qoran personal information baa ku qoran la buuxinayaa waxaa kaloo la buuxinayaa maxaa la dhahaa organizationkaada main activity uu qabto adiga titlekaada maxaa la dhahaa maaragtay iyo responsibility-ga oo waxa qabatid maaragtay war iyo waxa ku qoran waxyaabaha qofkan sababta uu maaragtay uu doonayo waxaanu kale waxyaaba yar oo kamid ah ku qoran meesha oo lagu qorayo qofka markaa templates aragtaan arki doontaa iyo waxa ku qoran wax la yiraahdo plan activity oo qofkan oo laga rabo yani markuu programka ama short course ama master ahaato yani markuu dhameeyo kadib waxa 6 bilood ka badnayn qorshaha u yaalo maaragtay uu rabo inuu qabto marka meesha waxa ku qoran waa qaybta plan activity shax yar template waxa ku qoran tablekaas marka waxa waaye objective iyo activity iyo maxaa la dhahayo period of implementation marka qofku tusaale wuxuu dooranayaa objective ku kala dooranaya oo rabo inuu hadhow fuliyo kadibna activity ka dhala lahaa kadibna xilligu oo fulin lahaa marka plan activities ayaga waxay fiirinayaan qofkan wuxuu koorsadan uu dalbaday wuxuu ka kororsaday iyo shaqadaas la rabo inuu hadhow qabto yani xogaha xiriir ka dhaxeeyo waxa ugu kordhayaan waxaan uu soo baranayo waxa uu qaban rabo wax ka caawinayaan oo wax ka taraysa ay meesha ay ka arkayaan warqad dowladda ka arkayaan waxa soo marka waxa ku qoran qofkii waxay fiirinayaan employer security-ga tusaale institution-kan ila priority area-din waa ku jirta oo ka fiirinayaan organization-kan qofkan ka shaqeeya priority area-din يعني la xiriira qofka title-kiisa iyo waxa soo dhan ay isku fiirnayaan marka employee assessment waa meesha ay ka dhadhaminayaan qofkan fursad uu heli karo iyo waxna wax dhimi karo inuu qofku meesha oo macquul ah oo priority la rabana ay ka arkayaan macnaha oo waafaqayo intaas baa ay maartay hadaas ku saabsan tahay waana wax ugu muhiimsan baarkii OKB ay fiirnayso waa marka waana warqadda sida loo isticmaalo qaybta jaamacadaha markuu yimaado short course waxa loogu baahan yahay waxay tahay markuu short course sidii uu rabay qofku helo uu ku dhufanaya markuu ku dhufto isla meeshas koorsadaas ayuu wuxuu ka helayaa qaabka u xarayn lahaa meelaha qaar koorsooyinka qaar waxa ku xareynaysaa wax ka yar 5 daqiiqo 20 daqiiqo ku xareynaysaa marka ayuu ma dhib badna istaad link waxaas lama maro kaliya in xataa meelaha qaar koorsooyinka qaar shahaadooyin ma upload gareynaysa waxa shahaadooyin oo ku xareynaysaa ma jirto kaliya meesha ku sheegaysaa bis formkaas aad buuxinaysaan waxa ku qoran scholarship-kan ayaa ka dooranaysaa OKB-ga ka dooranaysa la meesha lagu weydiinaa waxa lagu leeyahay scholarship-kan maxaa yaa fanka ka bixina kadib waxa qofku ka dooranaa OKB ka dooranaa haddiina meesha doorasho ahayn xataa OKB ku qoraya qofka macnaha markay fahmayaan ayuu in qofka scholarship OKB oo soo xareeyo hadhow marka jaamacad saas marka loo xareeyo oo qofku qofka u xareeyo jaamacadda ayaa la soo xiriiri doonta iyadoo marka la soo wadaagi doonta linkigii oo scholarship ka xareyn lahaa dokumentiyadii iyo oo maaragtay oo ku xareyn lahaa scholarship ka xareyn lahaa mar walbana OKB masar ama hal ama boqosaato qaraf ahaw iyadoo wixii waa same way laakiin waxyaabo waxa kala duwanaan karo si jaamacadaha waaye jaamacadaha waxa kala duwanaan karo shuruudaha iskar laga rabo admission-koodu kala duwan yahay jaamacadaha laakiin OKB waxa ay rabto waa employer statement iyo passport iyo saddex su'aal laga jawaabayo course masar ah ama short course ah laba mid ah marka ay uu fududeeyay website-ka jaamacadaha programyada ee jaamacadaha laga helana website-ka wala faahiyo in la wadaagto amrayna website-ka saxda ah in la wadaagto amrayna website-ka markay galaan qaybta how to apply ku qoran tahay isla website-kaas ayaa linkigii jaamacadaha geynaya ku jira linkigaas ku dhufanaysa direct qofku wuxuu geynayaa
programyadii ama soorta torsaada ama masar ahaadaan ayay u tagayaan kadib markuu miduu rabo ayuu ku dhufsanaa miduu soorta kooska uu rabo ku dhufanaya markuu ku dhufto isla markaasba waxa u soo baxayo aad ku cayn lahaa meesha uu ka helayaa waana very simple soorta kooska inta soo baxa